madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dufcad ciidamada qalabka sida ka tirsan u soo xiray tababarkoodii waxaanu maanta hanjabaad hawada u mariyay cid kasta oo ku soo xadgudubta xuduudaha dhuleed ee wadanka Soomaaliya waxaana tan imanaysaa iyadoo baryahanba ay ka dhex taagnayd car iyo wir xiisad ahi Somaliland iyo Puntland Somaliland iyo Soomaaliya waxaana la hubaa in madaxweynaha Somaliland uu xagga Imaaraadka qabtay iyadoo loo malaynayo inuu doontay hub iyo sanad haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadaladiisii uu goobtaasi ka jeediyay ee uu ku hanjabayay waxa kamid ahaa baaqaas oo yiri diyaar waxaan u nahay inaan nafteena u hurno dhiigeen u daadino waad mahadsantihiin inaan maanta taaganahay oo inoo tahay maalin taariikhi ah oo aan kulligeen markhaati ka wada nahay inay maanta dhamaystirteen oo ay yihiin dufcaddii ugu horreeyay oo runtii mutadawiciina ama naftood hurayaala ama volunteers u taagan inay dagaal la galaan oo ay difaacaan dalkooda oo ay difaacaan diintooda oo ay difaacaan dadkooda aad iyo kulligeen sharaf weyn inoogu tahay maanta inaan markhaati ka nahay dhanka kalena madaxweynaha Somaliland iyo wafd culus oo hogaaminayo wasiiro badan ayaa maanta oo mabaxay dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo la sheegay inay kala soo hadli doonaan xaaladda qasan ee ka taagan halkaasi wafdiga waxa kamid ahaa Faysal Cali Waraabe hadaladii wafdigaasna waxa kamid ahaa sida tan mucaaradka xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe halkaas oo laga wada hadli doono arrimo khuseeya labada dal iyo horumarinta labada dal iyo danaha guud ee dalka iyo tamandaqadaba waxaanuna aad ugu faraxsanahay in aanu runtii dalahaan aanu maanta halka marayno aad baanu ugu faraxsanahay inaanu waftiga awoodda leh ee lagu casubo deegaanka annagoo ka talin doona ama ka soo wada hadli doona danaha Somaliland iyadoo qaybaheeda kala duwan noocay doontaba ha noqotee aad baanu ugu faraxsanahay annagoo waxaa kale oo iyadana la xasuustaa maanta inuu madaxweyne Muuse Biix Cabdi Shirar badan la yeeshay hogaamiyaasha mucaaradka oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo weydiiyay inuu kala qayb galo shirkaasina uu isagu si cad u diiday kuna gacan saydhay madaxweyne Muuse Biix Cabdi halka aad warka kala socotaan waa telefishinka caalamiga ee Deegaan Channel TV ku soo hadiya jeer alana aad ka heli kartaan bartaan ku leenahay YouTube-ka